عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي والله كحنا channel كان Somali Network Classroom كسر دوادا مر لبعض يمر صدحات waxay noo socday koorskeena DS Digital Security aan kaga waramayna khataraha iyo weerarada iyo fayrasyada haleela computerkaaga shakhsiyadeed iyo computerkaaga shirkadeed dadka shaqeeya shirkad waa tutorialkeeni 44 waxaan ka goor waxa la shimin attack waxa la dhahay shimin attack ayaan kaga warami doonaa shimin attack oo maxaa tahay ayaan videoga kaga waramayna waxyaali saarina commentiga inagu reebi description kana numberkayga whatsappka shabakadan iska leedahay ayad insha Allah nagala soo xiriiri doonto waxyaalo ka farsameyna somnetclass@gmail.com insha Allah noogu soo dir insha Allah shimin attack ayaan videogan ka waramayna shimin attack maxaa horta kelmadda attack hayno dambayso laakiin kelmadda shimin ayaan ku horeyna shimin horta maxaa tahay shimin waxa weeye shimin horta waxa weeye waa program Windows operating system kaaga ku jira kaasoo u ogolaada barnaamijyada hore ee jiri jiray ee bir hore socon jiray ama laga guuray inay ku shaqeeyaan Windows kanimka ka jira tusaale halka waxay noo yaala barnaamij hore ugu shaqeyn jiray tusaale game bana soo qada barnaamij la yiraahdo run4 waa barnaamij ku shaqeyn jiray operating system yadii hore laakiin aan jirin waxa la run far ayaa la yiraahdaa barnaamijka la run far ee game-ka ayaa kaynoo yaala wuxuu ku shaqeyn jiray Windows wuxuu ku shaqeyn jiray Windows 7 kii ku shaqeyn jiray Windows 7 kii ayuu ku shaqeyn jiray haddaba barnaamijka shiminka waxa la shiminka horta waa barnaamij waa programku waxa laga helaa Windows operating system ka laga dhaxela wuxuu leeyahay Windows operating system ka hadda jira Soomaaliya Windows 11 laakiin computerkayga ka hadda waxa ku jira Windows 10 kii ayaa ku jira Windows 10 kii ayuu imanaya barnaamijka la shiminka waa kan barnaamijka shiminka wuxuu imanaya Windows 10 kii ayuu imanaya Windows 10 kii ku yimaado ayuu wuxuu ku leeyahay Windows 10 kii ku leeyahay barnaamijkan la run far wuxuu ku shaqeyn jiray ku leeyahay Windows 10 ayuu ku shaqeyn jiray sidaa darteed waa inuu ku shaqeeyaa Windows 10 wala socota shinku waa barnaamijka oo ogol barnaamij Windows operating system kaaga si automatically ugu jira kaas oo saamaxa barnaamijyadii hore ee ku shaqeyn jiray Windows-yadii hore inay maanta ku shaqeeyaan Windows-yada hadda jira marba ku celiya shinku waxa waa barnaamijyo hore programyo hore software hore oo Windows-yada hore ku shaqeyn jiray waa barnaamijku saamaxay inay maanta ku shaqeeyaan Windows-kan hadda computerka ku jira shinku selifana soma hadii lagu diyo waxa meesha ku qoran bal shiminka lagu diyo attack-kiisa hanoo dambeeyo waa program shinku waa maxay waa program laga helo Windows operating system kaasoo ogolaado old programmada hore u jiri qadiimiga turan inay ku shaqeeyaan current Windows computerkaaga Windows-ka hadda ku jira inuu ku shaqeeyo selifana soo shiminka hadda shimin attack maxaa shimin attack waxa weeyaan in barnaamij in virus ama barnaamij xun oo sida virus oo kale ama malware ahaado ama barnaamijyo hore ku soo aragnay midkood ahaaday in barnaamij uu sheegto shiminki uu sheeganaya shiminku muxuu barnaamijku ku jira computerkaaga soo Windows-kaaga viruska wuxuu imanaya shiminki ayuu imanaya wuxuu ku leeyahay viruska waa imanaya wuxuu ku leeyahay shiminki wuxuu ku leeyahay anigu wax ku shaqeyn jiray shiminow Windows operating system kii hore ee loo dhajiray Windows 7 kii tusaalahan ayaa ku shaqeyn jiray sidaa darteed Windows kalimka computerkan ku jira ee Windows 10 tusaale Windows 11 ayaa u sheegaysaa inaan ku shaqeyn karayo hadda imika inaan ku shaqeyn karo dadka shiminka si turjuma noqonaya Windows 11 kii ama Windows 10 kii ku leeyahay viruskan oo barnaamij shiminka ma fahmay ruuxan fayrasiyay barnaamijkan buu haysta wuxuu ku leeyahay Windows 10 barnaamijkan la viruska ee aad virus uma qaare waa barnaamij hore ku shaqeyn jiray Windows-yada hore computerkan aad ku shaqeeysid operating system u tahay ha ku shaqeeyo haddaba maxaa dhibaato u sameeyaa viruskan laga yeelin dhibaatiin wato tusaale oo kale
in uu bedelo datekii oo kale, inuu barnaamijyo kale uu horseedo, uu noqdo usii noqdo inuu usii magaranaysa Google xaad usii noqdo, ama inuu fayraskani inuu fayrasyo kale kusoo dejiyo, adigu si doona ha noqdee. shimin attack waxa weeye in barnaamijkaagii shiminka ee ahaa inuu Windows-kaagan hadda jira uu u sheego barnaamijyadii hore ku shaqayn jiray Windows-yadii hore in isagii lagu soo gabado Windows, oo la yidhaahdo annaga shiminkaana garanayo barnaamijyadii hore ayaan ku shaqaynaa, fayrasku saasoo kale u hadlo. markaa shiminka waa maxay? wax meesha ku yeelan akhno waxaa lagu yiri aska masaxan horta shiminku attack weerar noocaas weeya. waxaa lagu theory behind this attack, weerarka uu salka ku hayo aragtidu ku hayo salka weerarka ayaa ahwey isa virus ba dadkaas oo baranternis wuxuu sheeganaya to be a program in yahay program dadkaas oo used to work kaasoo raagsan jireen ku shaqeeyo previous Windows operating system yadii hore inuu ku shaqeyn jiray ayuu sheeganaya viruskaas, which kaasoo kan effect wuxuu saameyn karaya the settingada uu leeyahay iyo configurationada uu leeyahay computerkaagan operating systemka ku shaqeeya. marka shimin attack waxa weeye in fayrasi uu shiminkaagu kugu soo dhaxdhoonto, shiminkaagii aad u idmatay inuu turjumaan kaaga noqdo ama caddayn noqdo inuu barnaamijyada hore uu ku shaqayn jiray. shimin attack inaad wuxuu ka fahamtay ayaan rajeynaya. fidiga ka xiga intaan ku kulmi doono. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.